السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مقالكeenna maanta waxaan ku baranaynaa AI-ga badana TikTok-ga viralka ka ah sida kuwan oo kaleeto oo guryada la dhisayo oo kaleeto. Haddii aad muuqaaladan ku soo bandhigtid bartaada TikTok-ga ayna ku furan tahay qaybta lacagta waxaa ka samayn kartaa bishii dakhli adig ku kaafiya. Haddaba haddii aad danaynayso in lagu sameeyo ciwaan TikTok lacag u furan iyo inaad barato xirfadda video editing-ka ama muuqaal samaynta, waxay kala soo xiriiri kartaa lambarkan shaashada kaaga muuqda. Marka ugu horeysa waxaa u baahan tahay inaad soo diyaarsatid saddexdan application. midka ugu horeeya waa Gemini, midka labaad waa AI Fellow, midka saddexaad waa Pinterest. saddexdaas ayaa lagaga baahan yahay inaad soo diyaarsatid. haddii aad telefoon ka soo gelaysid sidoo kale waxaad isticmaalaysaa Pinterest iyo AI Fellow oo application ah, iyo sidoo kale waxaad isticmaalaysaa VPN iyo Gemini. afartaas ayaa isticmaalaysaa. computerka dhankiis markii aan joogno sida VPN loo soo kiciyo waxaa ku dhufanaysaa saddexdan dhibcood ayaa ku dhufanaysaa. then kadib waxaa kasii tegaysaa meeshaan ayaa kasii tegaysaa hadda calaamadan ku saari kadib waxaa kasii tegaysaa Chrome web store meesha ku qoran tahay ayaa kasii tegaysaa. markii uu halkan ku keeno qaybtan kore waxaa ku qoraysaa VPN Hindiya. VPN ka rabtid waa ku qoran kartaa adiga just iskale, laakiin Hindiya badan aan isticmaala India. okay, markii aad ku qortid waxaa ku dhufanaysaa midkan koowaad, kadib waxaad soo leedahay agtooda Chrome ayaa soo leedahay, kadib waxaad leedahay add ayaad leedahay haddana. okay, hadda VPN-kii waa inoo degayaa oo waad u jeedaa. kadib halkaan ayuu noo soo gelayaa oo waxaan soo furaynaa halkaan hadda calaamadan ku saaray. kadib waxaan saaranaynaa pin ayaan saaranaynaa marka koowaad, waa haddii aad dhanka computerka ka soo galaysid. then kadib halkaan ayuu ku soo fuulayaa. hadda nooma shidna VPN-ka, kadib waa ku dhufanaynaa. kadib waxaan leenahay agree, waxaan leenahay continue. then kadib VPN-ka sidaan ayuu noogu daaran yahay oo waxaan iska dhigaynaa waxaan joogna Hindiya oo kaleeto. marka si aan ugu isticmaalno AI Fellow-ga sidoo kale waxaad u baahan tahay afartan script. labadan waxaan ku isticmaalaynaa Gemini, labadan waxaan ku isticmaalaynaa AI Fellow oo muuqaalka ayaan ku samaynaynaa. marka ugu horeyso markii VPN-ka aan soo kacsanay waxaan soo furaynaa Pinterest ayaan ku qoraynaa. Pinterest markii aad ku qortid adiga haddaad telefoon haysatin telefoon ahaan ugu soo galaysaa waa haddaan kuu sheegay. kadib halkaan ayaa waxaa ku qoraysaa Pinterest, kadib waa ku soo dhufanaysaa. halkaan kore waxaa ku qoraysaa haddii aad rabtid guri, haddii aad rabtid waxaa ku qoraysaa home ku qoraysaa. haddaa rabtid waxaa ku qoraysaa waddo oo kaleeto ku qoraysaa. markii wixii maskaxdaada ku jiro ayaa ku qoraysaa. hadda oo kaleeto home ayaan ku qoraynaa. okay, home markii aad ku qortid waxaa raadinaysaa sawir aad u qurux badan oo ku qanciyo oo aad rabtid inaad muuqaal ka samaysid. tusaale ahaan oo kaleeto waxaan iska soo qaadanaynaa midkaan ayaan iska soo qaadanaynaa, waa qurux badan yahay. kadib waxaan ku dhufanaynaa si aan ula degno saddexdan dhibcood. kadib waxaan leenahay download image ayaan leenahay. okay, hadda sawirkii waan haysanaa. kadib waxaan soo gelaynaa Gemini ayaan soo gelaynaa. app ahaan waa usoo geli kartaa, website ahaan waa usoo geli kartaa. kadib waa ku dhufanaysaa. markii uu halkan ku keeno waxaad dooranaysaa create image ayaa dooranaysaa marka koowaad. kadib waxaad ku dhufanaysaa plustan agree ayaa leedahay, upload ayaa leedahay. then kadib waxaa soo gashanaysaa sawirkii hadda soo degsatay ayaa soo gashanaysaa oo guriga ahaa. open ayaa ku soo leedahay. markii aad sawirka sidaan u soo gashatid scriptiga koowaad ayaa soo copy garaynaysaa. scriptigan waxaa ka heli kartaa Telegram-kana waan soo dhigayaa. then kadib waxaa soo copy garaysanaysaa scriptiga koowaad ayaa soo copy garaysanaysaa. waxaa imaanaysaa Chrome-kii ama website-kii Gemini ayaa imaanaysaa. halkaan ayaa waxaa ku baasti garaynaysaa qoraalkii koowaad. kadib waxaa leedahay waad u diraysaa. kadib waxaa sugaysaa wax yar ayaa sugaysaa. ugu dambeyn sawirkii uu noo sameeyey oo gurigii oo haleysan oo waad u jeedaa oo qashin ka muuqdo oo dayactir u baahan ayuu inoo sameeyey. then kadib si aad ula degtay sawirka halkaan ku dhufanaysaa download. sidaas ayaa ku degsatay sawirka. mar labaad ayaa waxaa soo gelinaynaa sawirkii hadda aan soo degsanay ayaan soo gelinaynaa. upload ayaan soo leenahay isla sawirkii hadda aan sidaas ku sameynay. markii aan sidaan u soo degsano waxaa imaanaynaa meeshii uu inoo yaalay qoraalkii scriptigii labaad ayaa soo copy garaysanaysaa. copy ayaa soo leedahay.
kadib waxaa imaanaysaa Chrome-kii waxaa soo gelaysaa website-ka Gemini sawirkii markaa soo upload garaysid mar labaad waxaa ku baasti garaynaysaa qoraalkii scriptigii labaad halkan ku baasti garaynaysaa oo u diraysaa marka ayadana waxaa sugaysaa wax yar ugu dambeyn uu noo sameeyay sawirkii kale uu noo sameeyay oo gurigii haleysana oo shaqaale kor taagan oo hool ka wada ayuu noo sameeyay okay waan la degaynaa waxaan ku dhufanaynaa download ayadana waan la degaynaa okay markaa sidaan ula degno qaybta kore searching-ka waxa ku soo qoraysaa website-ka AI Fellow ayaa soo gelaysaa ama application ahaan u soo gelaysaa website-ka waxa saaran logadan ayaa saaran then kadib waa ku soo dhufanaysaa waa inuu VPN-ka ku kacsanaada VPN-ka badanaa waxaa la isticmaalaa markii telefoonka la isticmaalayo VPN-ka Turbo ayaa la soo degaysaa then kadib waa shidanaysaa application ahaan ama waxa u soo gelaysaa website ahaan okay waxa ku dhufanaysaa markuu halkan ku keeno create with Fellow ayaa ku dhufanaysaa okay markuu halkan ku keeno waxa ku dhufanaysaa get start ayaa ku dhufanaysaa kadib waxa ku sii dhufanaysaa new project ayaa ku sii dhufanaysaa halkan markuu ku keeno halkaas kor ayaa soo furaysaa oo wuxuu ku leeyahay waxaan ku siinay 150 ka waxa ku samaysan kartaa ilaa 5 muuqaal iyo 6 muuqaal meelahaas ayaa ku samaysan kartaa waxa soo furaysaa qaybtan ay ku qoran tahay text to the video kadib waxa ka sii tagaysaa midan labaad ayaa ka sii tagaysaa ayaa ku dhufanaysaa kadib waxa ku soo baxaysa laba balaas labadan balaastan koowaad waxaan soo gashanaynaa waan ku dhufanaynaa horta kadib waxaan ku sii leenahay upload kadib waxaan soo gashanaynaa sawirkii koowaad oo AI-ga inoo sameeyay ayaan soo gashanaynaa kii koowaad oo AI-ga inoo sameeyay markii aan sidaan u soo gashano wuxuuna leeyahay waxaad iska saxdaa size-ka muuqaalka halkan ayaa ku dhufanaysaa then kadib waxaa ka dhiganaysaa mid kale ayaa ka dhiganaysaa oo TikTok ah oo dhirir ah kadib save ayaa leedahay okay markii aad sawirkan halkan soo gashitid halkan labaada waxaa soo gashanaysaa sawirkii labaad oo AI-ga inoo generate gareeyay oo ku dhufanaysaa then kadib waxaa leedahay upload kadib waxaa leedahay sawirkii kale open ayaa soo leedahay oo ku soo dhex furaysaa kadib waxaa leedahay save ayaa leedahay wax yar ayaa sugaysaa okay hadda labadii sawir waan soo gashanay then kadib promptiga ayaa halkan ku qoraynaa promptiga waxaan tagaynaa note-kan ayaan tagaynaa then kadib promptigan saddexaad ayaan soo qaadanaynaa oo copy ayaan soo leenahay okay markaan soo copy garaysano waxaa imaanaynaa website-ka halkan ayaan ku baasti garaynaynaa okay kadib waxaa soo furaysaa halkan ayaa soo furaysaa waxaa iska fiirinaysaa inay halkan ku tahay oo haddii aad 4 dooratid 4 muuqaal ayaa ku samaysmayso oo promptigan kaliya uu kaaga sameynaya haddii aad 2 dooratid 2 muuqaal uu kaaga sameynaya marka halaa la doortaa badanaa halkan waa inay ku aataa VO3.1 halkan koowaadna waa inay ku dooranaataa size-ka TikTok-ga then kadib waxaa ku dhufanaysaa halkan ayaa ku dhufanaysaa filaarta waxaa sugaysaa ilaa uu muuqaalka nooga sameynayo okay ugu dambeyn muuqaalkii uu noo sameeyay waxaa 2 jeer klik siinaysaa muuqaalka ayaan fiirinaynaa waan daraynaa markan waan la degaynaa ku dhufanaysaa calaamadda download-ka then kadib waxaa ku dhufanaysaa mid aanay ku qoran tahay original size sidaas ayaa ku haysataa muuqaalkii koowaad okay si aan u sameyno next video waxaan ku dhufanaynaa halkan balaasta koowaad kadib waxaan soo gashanaynaa sawirkii labaad oo AI-ga inoo sameeyay ayaan soo gashanaynaa sawirkii labaad oo AI-ga inoo sameeyay kii koowaad ma ahan iyo waxaan balaastan kalena waxaan ku soo daraynaa sawirkii aan Pinterest ka soo dejinay oo guriga quruxda badnaa ahaa ayaan halkan soo gelinaynaa oo upload ayaan leenahay then kadib waxaan soo dooranaynaa sawirkii koowaad originalka ayaan soo dooranaynaa okay save ayaa leedahay waxay imaanaysaa meeshii uu ku yaalay qoraalkii uu ku yaalay ayaa imaanaysaa scriptigii u dambeeyay ayaa soo copy garaysanaynaa copy ayaan soo leenahay okay markaan sidaan u soo copy garaysano waxay imaanaynaa Chrome-ka ayaa imaanaynaa kadib halkan ayaa ku baasti garaynaysaa scriptiga waxa ku dhufanaysaa filaartan ayaa ku dhufanaysaa waxa sugaysaa wax yar intuu muuqaalkan haddana ka sameynayo okay muuqaalkii ugu dambeyn uu noo sameeyay
oo waa ka ujeeda waan daarayna hadana muuqaalkan kiliga ayaa ku dhufanaysaa waa muuqaal aad u qurux badan oo waad ujeedaa marka si aad ula degto muuqaalka marka waa si aan ula degno muuqaalka waxaan ku dhufanaynaa kor ayaan wax yar u soo baxaynaa kadib waxaan ku dhufanaynaa calaamadda downloadka kadib waxaan kasii tegaynaa original size sidaas ayaa ku haysataa muuqaalkaaga okay hadda muuqaaladii waxaan ku sameynay AI waxay u baahan yihiin edit garays ay u baahan yihiin si aan u edit garayno waxaan soo galaynaa application CapCut okay markaad soo gashid applicationka CapCut-ka waxaa ku dhufanaysaa new project waxaad ku sii dhufanaysaa halkan upload waxaa soo gashanaysaa labadii muuqaal oo hadda AI-ga aan ku sameynay markii aan labadii muuqaal aan soo gashano muuqaalkii koowaad waa kan aad ayaan soo leenahay oo hadda waan daaraynaa fiiri okay markay sidaan tahay waxa soo gashanaynaa hadana muuqaalkan labaad ayaan soo gashanaynaa xogaa wax yar edit yar aan ku sameynaynaa okay finally sidaan ayuu ku soo baxay muuqaalkii dan kadib muuqaalkaaga waxaa soo gashanaysaa bartaada TikTok-ga kadib waxaa sidaas ku helaysaa daawadayaal badan marka muuqaalada camal sidaan ayaa loo sameeyaa haddii aad adiga telefoon adeegsanaysidna waxaad maraysaa oo kaliya saddexdan application kow Gemini labo VPN-ka Turbo saddex AI Fellow iyo afar waa inaad heshaa scriptiga waxaan ku dhahay waxa ka heli kartaa dhanka hoose description-ka muuqaalkan sidoo kale waxaad ka heli kartaa Telegram channel-kayga haddii aad muuqaalkan waxaan ka faa'iiday fadlan like ta kiilowin ma sanidin dhamaantiin